waxaa la isku dul taagay arrimo aad iyo aad u muhiima oo ay ka mid yihiin dhaqaaluhu halka uu marayo COVID-19 xanuunkii halka uu wax gaarsiiyey iyo halka uu taagan yahay iyo cilaaqaadka ay la leedahay dhaqaalaha waddanka waxaa kaloo aad looga hadlay oo diiradda la saaray shir soo socda oo ballaadhan oo dowladda Soomaaliya ay la yeelanayso hay'adda IMF-ta la yiraahdo oo bilaabmaya barimaasaan dambe 31 bilaabmaya ilaa bartanka bisha kale soconaya oo imtixaanadii caadiga ahaa ee geedi socodka Soomaalida lagu eegayay waxyaalahan ku heshiinay ayaa iyagana diyaar garowgoodii maanta halkan lagaga hadlay iyo wasaaradda waliba sida ay ula falgalayso su'aalo fara badan oo la soo diray oo soo direen IMF-tu hay'adda lacagta adduunka ay soo dirtay waxa kale laga hadlay si guud Soomaaliya sanadkiina soo dhaafay sida loo arkay performance-keedu sidoo yahay